Assalaamu calaykum. Kuwan waa 10 macluumaad kooban oo aan soo aruuriyay. 1983 orod ultra marathon ah ayaa waxaa lagu qabtay Australia oo ay orodyahanadu ku tartamayeen masaafo gaaraysa 875 kiiloomitir oo u dhaxaysa magaalooyinka Melbourne iyo Sydney. Dad badan ayaa ka qayb galay tartankaas, laakiin waxaa ku guuleystay oday da'diisu ahayd 61 sano oo beeraley ahaa, magaciisuna ahaa Cliff Young. Guushiisa aan la filayn ayaa waxa ay ka dhigtay nin caan ah, laakiin maalintii u horeysay tartanka wax badan ayuu ka dambeeyay tartamayaasha badankood. Habeenkii ayaa ay seexanayeen qiyaas ahaan 6 saac, laakiin Cliff Young ma uusan seexan ee orodkiisii ayuu sii watay, markaas oo uu dhaafay kuwii ka horeeyay. Tartankaas ayaa waxa uu ku qaatay 5 maalmood, 15 saac iyo 4 daqiiqo, halka ninkii ku xigay uu ku qaatay 6 maalmood iyo 1 saac. Sheekadiisa ayaa waxay u dhowdahay tii diinkii bakaylaha ka dheereeyay. Dadku intaysan matagin ka hor candhuuf iyo dhareer badan ayuu jirkooda soo sii daaya. Candhuuftaas ayaa waxa ay ilkahaya carabka iyo dalqada ka ilaalisaa mataga, maadaama uu ku jirto aashitada caloosha, taasoo waxyeello u geysan karta afka. Xayawaanada badankood waxay awood u leeyihiin inay indhahooda ka biligsiiyaan, laakiin masasku waa ka duwan yihiin. Indhaha masaska mar walba waa muuqdaan, xataa marka ay hurdaan awood uma laha inay isku qabtaan indhahooda. Sababta arrintaa ka dambaysa ayaa waxay tahay in indhaha masasku leeyihiin dabool ishooda saaran oo wax laga dhex arki karo. Daboolkaas isha maska dusha ka saaran ayaa waxa uu ka ilaaliyaa in isha ciid ama waxyaalo kale ka galaan. Haddii aad masaska ka baqdid, waxaa jira wadamo adduunka ku yaal oo aan hal mas ahna laga helin. Wadamadaas ayaa waxaa ka mid ah New Zealand oo aysan masasku noolayn dhulkooda. Dawladduna mamnuuc ka dhigtay in la geeyo halkaas. Xataa beeraha xayawaanada lagu soo bandhigo ama zooga ayaan loo ogolayn in masaska la geeyo oo kuma arkaysid. Masaska badda ayaa marar lagu arkaa xeebaha waddankaas ee kuwa dhulka waa ka caagan tahay. Dadka Kuuriyaanka ah badankood kilkishoodu ma soo urto, sidaa darteed Koonfurta Kuuriya waxaa ku yar iibsiga deodorantiga. Arrintaas ayaa waxaa loo sameeyay inuu ka maqan yahay gene la dhaho ABCC11 oo xiriir la leh sababta ay kilkishu u soo urto. Horta urta ayaa waxaa sameeya bakteeriya aysan ishu arki karin oo cunta borotiin dhididka la socda. Laakiin dadka uu ka maqan yahay gene-kaas aan horay u soo sheegay ayaan kiimikada ay jeceshahay bakteeriyadu la socon dhididkooda, taasoo yaraysa in kilkishoodu soo urto. Waxa kaloo intaas u sii raaca dadkaas in dhukayga dhagtooda ku jira uu yahay dhukay adag oo aan qoyaan lahayn. Waxaa jirta xaalad la dhaho prosopagnosia oo ku dhacda dadka qaybtood. Xaaladdan ayaa waxa ay keentaa in dadku garan waayaan wejiyada. Dadkan si caadi ah ayay u arkayaan wejiga, laakiin garan mayaan qofka uu yahay, xataa haddii ay horay u yaqaaneen. Waxa ay qofka ku garan karaan timihiisa, dharka uu gashan yahay ama codkiisa. Dadka qaybtood ee qaba xaaladdan xataa sawirkooda haddii la tuso ma garan karaan. Dadkan ayaa waxa aysan kala sooci karin 2 weji oo kala duwan. Xaaladdan dadka ay ku dhacdo ayaa badankood maskaxda jug ka gaartay, iyadoo ay dhibaato gaartay qaybta maskaxda ku shuqul leh garashada wejiyada. Kangaroogu waa xayawaanada waaweyn kan kaliya ee markii rabo inuu socdo boodbooda. Markii uu boodayo ayaa waxa uu sayntiisa dhulka taalo u adeegsadaa sidii inay tahay lug saddexaad oo kale oo awood u siisay inuu boodo. Haddii marka sayntiisa dhulka laga qaado, ayuusan si fudud u boodi karin. Stomatus muritis waxa uu ahaa nin Greek ah oo ku nool jasiirad ku taala waddankaas. Muddo kadib ayuu Mareykanka aaday, laakiin 1976 ayaa dhakhaatiirtu u sheegeen in kansar uu kaga dhacay sanbabada, uuna sii noolaanayo 6 ilaa 8 bilood kaliya. Markaas oo uu ku soo laabtay jasiiradiisii, laakiin sidii ay sheegayeen ma noqon oo sannado badan kadib ayuu sii noolaaday. 12 sano kadib ayaa waxa uu damcay inuu u tago dhakhaatiirtiisii, laakiin waxa uu ogaaday inay wada dhinteen. Ninkan ayaa waxa uu dhintay isagoo da'diisu ahayd 102 sano. Jasiiradda uu deganaa ee Ikaria ayaa dadka yar ee deganaa cimrigoodu dheer yahay. Cunto fresh ah iyo iyadoo meel sare ku taala oo dadku socod sameeyaan ayaa keentay in caafimaadka dadka degan uu fiicnaado. Waxaa jirta bisad xilliga mugdiga ah ifta. Waxa keenay inay bisadahani ifaan ayaa ah borotiin. Gene-ka sameeya borotiinkaas ayaa waxaa laga keenay xayawaan badeedka la dhaho jellyfish, noociisa awoodda u leh inuu iftiimo. Haddaba saynisyahanada ayaa marka ay rabeen inay ogaadaan gene ay ku dareen bisada inuu shaqaynayo iyo in kale, ayaa waxa ay ku daraan gene-ka iftiimaya. Hadhow marka uu xayawaankaasi iftiimo, macnaheedu waxa weeye waa ku guuleysteen shaqadoodii. Saynisyahannadan ayaa muhiimadoodu waxay ahayd inay daweeyaan cudur sidii AIDS-ka oo kale ah oo la dhaho
FIV oo ku dhaca bisadaha oo sida HIV-ga oo kale sameeya in difaaca jirkooda uu yareeyo. Fayraskaas bisadaha ku dhaca dadka kuma dhaco, kan dadka ku dhacana bisadaha kuma dhici karo. laakiin maadaama DNA-ga ama hidasidaha wax lagu darayo ayaa dhibaato ka imaan karta. Waa dhaweyd nin Chinese ahaa ayaa waxa uu sameeyay DNA-ga ilmo yar ayaa waxa uu ku daray gene ka hortaga AIDS-ka. Markaas oo adduunka dhan laga cambaareeyay maadaama aan la ogeyn cawaaqibka ka dhalan kara arrintaas, khaasatan maadaama carruurtu aysan cudurkaasi aysan qabin. Marka waa maxay faa'iidada ay arrintaasi lahayd? intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. Intii aan madama kulmi doono nabadgelyo. Wassalaamu calaykum.